casharka saddexaad waa cashar ugu muhiimsan weeyaan. Cashar saddexaad waa casharka ugu muhiimsan oo ay tahay ardada inay ka dhergaan. maantu kan fahmi waayo ma shaqaynayso. Ah. Ee, alifkaas ugu horeeya hadda maagta isbedel kii yaraa oo hadda imusine waan ka soo booday oo dhahayay qur-aanka uu ku badan yahay. dibuna waa noqdana haddana dib u nooga imaanaya insha allahu tacaala. alifkaas markii waa idiin sheegay markuu yar yahay saan u qoran yahay waxaan dhahnay qur-aanka asaga kaarta ka badan. waxaan dhahnay sootul racdi waa 38 sootul xijri waa aayadda afaraad kahfi 27 iyo naml aayadda koowaad alkitaab afartaas aayad lagu taagaa insha allahu tacaala. haddana hoos u socdo insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa casharkaa iman doona kan waa alif kana waa alif kana waa alif kana waa alif kan waana waa alif weeyaan. waxaa laga yaabaa dadka qaar is weydiiyaan maxay tahay alifkan kan wowa u naqaana kana ya u naqaana waa run allah u dhayana ya wowa u naqaana laakiin may musxaf falatay kana waa noqda alif kana waa noqda alif riba zakata hayata taasay qoran ma haddaad halkan calaya waxaa ilaa iyo calaa iyo taasay qoranta. marka haddii ya alif saaran yahay waa alif haddii wow saaran haddii alif saaran wowna waa alif wow maaha waan arki doonaa tusaale insha allahu tacaala. ba kulli wada ba weeyaan. haddii ma intaas arday uu meel saaro xarfahaas saddex u qoran yihiin qaab afar noqon qaab shan noqonaya ta gaab ta marbuud ahaa fa jiim xafi marka hore to aan soo dhignay halkaana kulli ku yaala laynkaas kala soconay ardaygu aduma kan yaqaano kana waa akhrinay easy weeyaan waxaa leenahay layn kasta waa isku hal xaraf badan ardo fara badan oo joogta daalkaas oo yaqaanaan inuu laam yahay magacaan uu leeyahay waa laam ilaa loogu dhawaaqo arag islaam bay moodayaan ra za siin shiin xataa u soo bedelayaan hoos baan socodsiinaa insha allahu tacaala ilaa inta meelaha ugu dardaran oo maanta waxaan dhahayay ardada iyo macallimiinta mararka qaarkood macallimiin ardada saxanta labada xaraf markay weyn yihiin xogaa way kala duwan yihiin mararka qaarkood waad aragtaan hadda dhammaadkooda midna saan u qoran yahay midna saan u qoran yahay soma hadda kahor meel badan baan ka sheegay anoo loox anoo ku qoraysa burud baan meel ku taadha north london west london baan sabuur baan ku qoray si waan qoray aniga 7 years yaa yiri macna khaldanta war maxaan ku heli maxaan qaldan wuxuu yiri saas baan qoray laba xarf hadda alif kana u bilaabay buuga farta ka bartay u qori jiray waxaan ku hala soo istaag sax ardaydan shock macallinkii iyo tabta aad buu qoray ma sha Allah noo qurxiyay madaxa ka shumiyay nacna basi هاي صاحبه حبيبها marka ana amiir ma shaqayska jiraya hadii laga saxan yahay ardayda cilmiga ka qaadana hal dhinac ma waxbarashadu waa laba dhinac weeyaan marka ardayda ka faa'iideysan marka awayas ka faa'iideysan okay kaaf laam alif laam alif marka laam alif kaas caadiyan xarfaha kuma jiro in aad u dheerado marhabo xarfaha carabiga meeqa weeyaan quraanka meeqa weeyaan sana carabiga ka dheerado معلم واحد يظهر لطيف جدا اروح اللي لطيف يعني صدر ما له اونلاين ما قال waxaan keenay online waxba fiinay wuxuu soo qoray sadar xaraf laakiin sabu wuxuu sheegay markuu hadlayay dadka waxaan baraa lطيف jid xaraf waxay marka arday waxaan sameeyay arday waxaan ku leedahay ka barto meeshan waxaan soo arkay wax confusion sameeyay isku hor maanay waxaan ku leeyahay page ku qoran alif soo dhijisay sadar xaraf aan qoran adna waxay 33 xaraf marka shay 33 xaraf baan iska waafaji uma soo arday ma soo waxay maxay soo horta ma fahmay zay fahansiyo meel u qaad garaway macnaheedu labaatan saddex xaraf weeye soddon seef u yihiin waxay isku dhex qasay khabay wuxuu si khatar u sameeyay yiri markaa is qorto baan saxayna hiya ku insha Allah taala marka xarfaha marka alif ka bilowdo lama alif ku darto waa saddex xaraf weeye soo baara qaacida carab u degsan dhamaantood إملاء حرفه ولا تنسى حرف بلا امتراء مران الآن ولا تنسى حرف مربى واحد ده قراه همزة يعرف
ما كان شوفنا قرآنك تجويد قد دبوا كل عبنا أحكام النون ساكنة والتنوين ما نعرفها سنة لا تصدق حرف ما كان هذا النوع وحلو يقع إنه شمسية قمرية ما قاعد سنة لا تصدق حرف مرة كان أحكام المدود ما قاعد سنة لا تصدق حرف عادي ما كان لا تصدق حرف لا تصدق حرف مرة حق طبعا حد يراوانه مرنا مرة ورسول فصيح لا ما أعرف ما كان حيانا يسوق wadaad baa jira kitaab oo loo yaqaano mutanno jazariya iska oo tajwiid ka hadla marka waa ficnaan lahayd inta inuu isaay laakiin may muuqanaya hadda marka markuu ka hadlayay wuxuu sheegay xarfada ilaatan saga xarf yihiin wuxuu sheegay inaan alif laga bilaabi karin hamse laga bilaabo ay tahay wuxuu sheegay haddii qof la weydiiyo alif sheego inuu dhahayo laa alif ma dhihi karo laa maxaa dhahay laam baa loo isticaanaystaa si loogu dhawaaqo alif alif reeb dhihi kartid marka culamo badan mucaasiriin aan qabaan alif laga bilaabo in hamse laga bilaabo waxaa ka mid ah sheekheena weyn allah xifdiyo qaariga muqrica shacbi shacsuuf xafidahullah hamse laga bilaabo sidaa daraaddeed culamo badan jillaha akhyaara ku dhahay hamse ka bilow qaarna alif bay ka bilaabaan oo waxaa sheegtaa alifaat oo waxa shan lagu difaacay alifka la yidhi alif daliil buu leeyahay alif daliil buu leeyahay in haddii la ku ron yahay laga la akhriyo lagu dhawaaqo nabi sal alay xarfaad tirinaya inuu alif xaraf yahay ajar hal leeyahay sheegay nabi sal slam marka culmada saddex daliiltooday leeyihiin laakiin ujeedaan leeyahay maxay tahay qofka ka bilaaba marka alif xarfaha qori alif ka bilaaba laba alif ma qori karo haddaa qortid baa akhri saddex xaraf baa qorta laakiin qofka hamse ka bilaabaa laba alif qori kara waa inaad fahantaan haddaa alif ka bilowdid alif baa taa alif kasoo bilowday laba alif haddaa ku darto saddex xaraf ka noqdeen waana khaldantayna ujeedada laba alif markaa waxay ahayd alif loogu dhunto alif loogu dhawaaqo alif loogu dhuntay ahayd asagoo xaraf ka magac banaan mustaqila ma aha markii xarfaha la joogo laakiin qofkii hamse ka bilaaba hamza baa dhaha kaas laba alif qori karaa gadaal buu geynayaan bari doona insha allah tacaala marka si loo barto ardaa intaan keenay laba alif maada xarfeena ku jirin inuu alif ka bilaabaa hamse ka bilaabo culmadaas waa khilaafsanaa allah xifdiye kuwa kala raacay haa marka laam alif ardada ay bartaan marka halkana imaan doona hamza haye kana hamza kana hamza والله يعني انت مسوين الاغنجه اللي ماشي خبط انا الف قاع او نوع اسمها ان بدل ما نكاد لنا كل مد ولا ان شاء الله تعالى همزات والد ديدي دقار واحد ما جرو دقار واحد انت ما جرتو بدل كان waxa lagu okay wala hela kan waxa lagu okay waa macquul kan badana wala yaqaan asna kuwa okay kan waxa lagu kuwa xabala originalka aha marka hamzadaas نوعي بقى مقرأ صوت الشاء انت اصلا نوعا حصول يحب انت ولا غيابا سياد رادد مركز الله شرحي وحنا همزة للشيء ما هن آيات قرآن حديث سودي منا ما هاي آيات قرآن حديث منا ما هني واجتهاد تدري قرآن همزة أنا أصحاب ما قرآن بقى دلوا عنهم وحمزة قرآن وحور رياض الشجاع خليل ابن أحمد الفراهيد من ناحية رحمه الله أصلا أنتو عين ما عين خسر سكة طبعا هاتي لبدا همزو قرآن اسمه بخشران قف في ريتان لؤلؤ المخنوني قف تنقر وعي وحكي كرا لكل امرئ الله قرآن قرآن تهي إما يكتب الله يلا ولا غيابه خلاص أري خلاص همزو اسمه بخشران قرآن قف في ريتان صوت الواقعة لؤلؤ نحط في فرع في إن شاء الله تعالى أنت يا قرآن خشران إنه كجرتو لأن كانوا ويا صح كانوا ويا خلا توتني ويا كانوا ويا لا ما كانوا ويا شاء لحظة ويا شاء يا سيدو مستقل وشغل القرآن قبل هذا إن بدنا واشة ونكون دونا أضاف في رصيد صوت النمل معي هذا العظيم دونا ناس دونا خلدنين أيضا مستقلة مدح برنامج كنت شغله في الحياة فما آتاني الله آتاني أفيرت إن شاء الله تعالى أنا أنت اللي ويديو لكن وش الشيء إنه معنا تحكي ما قعد وش الشيء ده معنا دورك غير قليل ولكن دي بقول مرة سفر يست هو إن إحراج رياض دي دنا هو يغني مركب معلمين وكيف بلا امتحان ألف آخرية
qaar baa ka dararay marka fariin ma farax ku yiri macallimiinta Soomaaliya imtixaan lagama qaado hal oo weydiiyo su'aal iska furan sida adiga haday ka jawaabayaan laakiin macallimiinta su'aal imtixaan lagama qaado حتى ما شغال دونايا شهاده موجوده حتى بلعبتي ما هي تصحيح اجازه مسوقاتي وهذا على حاله واحد مجري يجري معاه معلم سوالي معلم تعال معلم انا واحد مجري بقى سوالي ما هو كل شيء ان شاء الله تعالى هم معلم موجودين هي اسوا الشهران والشغل ورا يخبوا وحده لإيلاف صوت قريش إيلافهم أرض ما كان يا غنم معنا ما كان كلام إبراهيم وصل شيء سمع فما تاني هذا أي شيء ما كمان أرضه لقدر تشيو حرفها حركات وقردونا لبدا الشيء أن كتبني أن أقدر وحلا أخوي وشغل يشبني حروف يا حركات consonant vowels سمع حرفها أرضي أنا أقول بقرآن يا آخرنا يا قبل بعد أقدر إني كان توسينه هبع عبادة إرياء رمنا أسكع عبين نما عقدوا صحنين إلهي كعبودية ويل هذا شو ويري أبيز حاجة درهي ما تيجي تقول أبي كورن حبوا جيران محمد الله يقول محمد الله وأنا ولي أجيب يا بخير أبى العتو ناس عروس حاجة كذا بخير على أبر ما هي أنا عقدي مصحى موت من كائن تاجع شعب الرجال كم الله يو حاجة كدورية الماء حرفها صغار قرآن برا يا لم يتها الماء حرفها قرآن ودي يا واحد لم يتهاي عقدي إنك تسوي عبادة عقدي إنك تسوي هبع عبادة إلهي سبحانه وتعالى هذا حدث يقولون إن عبادة ما ضدن إلهي محروق خلق قولي خطروا حرفها أرضاء برنا القرآن أخريان اختاروا هم هو أخريان معنى لفظ التوبين كويسة لفظ التوبين كويسة والله مرة دارين والله بيلك أسبوع سوري سلام سوالي مغلي دايسا شعو جرا نبدأ أدان قياسي سيدتهم ويرين تصبح ليه نوذ ضد كان عقده لو صعب بعدين إله حبات شيء أبغى جيران يا شيخ ابن عبادي الله سبحانه وتعالى شعو جرا من بعد كويسة ده وين تصبحنا بتصبح حيكون آخر تصبح حيكون آخر بس بدي إلى أن إلى أن سبحانه إلى أن إلى حق إلى وده سبحانه وتعالى خطر والله قف إلهي خالق أبو ري يا مخلوق كلا أولين خطر حق كلا سنين ذات كلا عامض على كوا والرشاء والمو شكتي لولا أولياء الله هاي ويسوع قرمنا يعني من بعدين يعني هذا دبل الله سبحانه وتعالى أوكي هذا ما عرض حرفها سيقانو وأن مالك الصحنو أو dadka maanta quraanka akhrinaya in badan kan wallahi ma yaqaanaan والله من قال لك حرفاس ما بيجي قرآن ساخري أدوش أخرنا حرفها أمبرو ما تقرأ صح حرفها أمبرو أدو حرفها أمبر طبعا أرضي ما حنكو حجرين وحن كقاعدة أنا تستي اختبار أنا امتحان مرة أنت آخر واحد حرفها كأنه كاف ها نون لام غين قاف كاف أدو ده واللام دي بقى علينا ده قاعد غير مرة وحنا صبر هذا حرفها أنا بعض بريسان امتحان كان تست كي قاعدة اختبار وحرفها نو دينا هذو حرفها سيقانو خاصة سودينا إلى يكوي أو دينا يرك هاي ألف كم بحي وهنا كانوا ألف دول واو على يا وين كان لو ويديا كاس لو ويديا لام كاس يعرف إنه كان يقان الله ألف كنا حق وجه خاص ألف هل عندنا على قدرة لا ألف عنده فيريا ألف عنده قدر سماء لام كنا لما يجلس حوالي لو قدرة ورسالة فانسية دول لام لما تقرنا ساو نقطة هذو ألف لما يعرف الأساس ألف لما نواكنا أصلا خلاص فما حال سؤال ضيع ألف لما تقلي يا لام كاس قل لنا المؤمنين لما يكون يكوي طبعا كمان فيليا فلسبري باك اريا نورث لندن كمان ترمى نضع هايتمنت والرب الكعبة تنسى كان غونين الواحد يشنسي قال ما كنت مراك غار كود وهم معلومات وليال العشر من والفجر هي والضحى
هو مصيبه مرة قاركود ما waxaan dhahnaa xataa haddaan khaldanahay qaladka aliha igu ekaado kan dadkaas gudbiya maaha mid alla maanta adduunka waa horumaray maantii wax dhig habeenkii wax baro hoshiihoy caawi telefoon dir war youtube gal meel goor ha yani halkaas ku cararin xarfaha ahaan waa very important ama ha aata adda macluumaad aate waa meel la saaraa ha daa xarfaha meel saarno waxaan ku inuu wuxuu doonaa shaqalada quraan ha casharkan waan ka boodaya wuxuu soo geli doonaa insha allah tacaala casharka afraad marka la tago waa xarfahan wax lagu darinin ayaa booskaas boos baan u weynaa meesha u keenay okay waxaan samayn doonaa marka inaan halkaan keeno ardaygii ha ilaahaye hadda haddaan weydiiyo dadka qaarkood waxay akrinayaan hadda baad leedahay shaqalkan marka waxaan xooga saarayaa hadda 5 daqiiqo xarfahaas iyo shaqaladan u fiirsan macna shaqalkan magaciisa baa la dhahaa kana waa khuraafaad wax jira ma ahana kana kana waa khuraafaad kale wax jira ma ahana shaqalo magac bay leeyihiin a i u waa hamse shaqa la saaray in una waa hamse shaqa la saaray iyaduna fatxatayn kasratayn dabatayn baa saarta mara fatxa iyo kasr dama saartay khalaas halkaana timin marka inta ardayda yaqaanaan laga yaabaa oo akhri karaba kan 99 ma yaqaanaan saddexdaan haba sheegin ba haye labadan ka waxaan ugu jirnaa god Soomaaliya ma loo dhigeen loo god baan noqon kan ma soo gala anaga badan ama ma uu jiraba sidoo ma noogu jiro oo ano maana noqon jirin looxtan loo qoro buutay ka dad ma qoro calana ma qabtaba oo salaabanaya kana waxaan ugu jirnaa inuu yahay sukuun ama reeb Soomaa وانا خلاص سكون مرام جوغانا سكون معها لا كان سكون انا وراك اخر السو الا يكون اخر السو جنا له كمان انا شد على لها من التشديد ها انا شد عيب نظمها شد هون ممنوع مد مو ذكري مد كان ترى بدين لكن مدود بلا انت قاطع له مع معلم يشرح طبعا علي بطلع انا ما عشان يغلب عليك واقول لها بنا يا مرك هي فتحه كسره ضمه marka anoo kordhig iyo hoose godin ma aqoon jirto Soomaa waa local language waa isticmaali kartaa laakiin ardayda wax sabarin ku fahansi xogaa laakiin bariimada macallinka uu toodo kordhig hoose godin oo waxa leeyahay ma quraan Soomaaliya qabtaan hana u dhacday ma quraan Soomaaliya jira ma quraan carabi iyo ilaahay qorays ma fatha kasra dama ma bar haye hadana maxaan bar doonaa fathatayn kasratayn iyo damatayn haye kana waa damatayn kala asaguna laba damatayn weeyaan كان كلا دوين ما هني وضمتين هل كان عمي محون وضمي فتحة ميم وقرا فعل معها فتحتين كسرتين يضمتين يسوونها اسمدوا يعني هذا أنا تفهمت هذا ما له عدنين كفيل الصورة طول صورة إذا جاء صدق سامع خبر صوت النصر سمع إذا جاء معقول متى إنه كان توابا توابا تجد وقف الله هذا يكاد جواب توابا فتحتين محاميم كم لغة بعض حروفها يقول هذا مرة شال من مساد من أصلا من خليل هو يرمو من مساد صوت طبط صوت المسد سمع وعذاب نبكي أنا هاي استكملت هاي أرض بدن معلم بدن ولا صوت ما صوت طبط عمري أدنى عم صوت وعم جرى ديال كوري هاي صوت الإله فهم جرى أدنى عمري يا صوت رأيت الذي أرضها هلا برا قرآن كما عيسى صوت برا عمري ما تسمع قرآن مغيول ما مغينا برا شغلة موعظة برا وبريء سمالي كرو ما قواش شيء إذا جاء طبعا ما شيء هذا قوله والله خلاص قوله والله كفوا أحد وحاول صاغتي وصح سورة سكوكته القرآن ما كان بيوحى شغلة ذلك كماناي ويا ما كان تاسو خصوتي هذا صوت شيء صدح ذان وفتحتين كذرتين ضمتين صدح واحد كميت سمع صدح وراء نقانة واش وساس هلية يو كان واحد رأسين ضمتين ضمتين اللي جرا خاصة فرضنا إن شاء الله تعالى haddii aan ku laabto looxii ama buugta qaarkood kan waxa loo yaqaanaa god laakiin quraanku yaqaanaa sukuun ama reeb soma ma waa reeb quraanka taas quraanku reebka u qoraa calaamadan waa dhahay ma isticmaalno arabana ma isticmaasho quraanka bis waa isticmaala waxa loo yaqaanaa hamzatul wasl alif bisu raaca alif hamzatul raaca reebna ma sukuun ma ahan okay
calamadana imaanaya ma ahan reeb qofka reeb u yaqaano quraanka akhriyaan saa hore u dhahay janna ilaahay geeyo raxmatullahi calayh waa in badan baad arkaysaa adoo ayoo qalka akhrinaya meeshaas marka shaqal ma ah marka sukuun maahane calamadan waa calamad shaysa aamusnaan asal calama aamusan weeyaan weliba waa laba calaamad isku dhow waxaa loo yaqaanaa mustadiir iyo mustadiil laba musxaf gaar ka yeelan ka fiirsh hal aayada bay laba gees kasoo galaan laba gees kasoo galaan hal aayada bay laba gees ka raacaan waa quraan taqaana weliba qof fahmi kara quraanka yaqaan ka dhamayn intaba suuratul insaan qawaariira mid hore waa la akhriyaa daba lama akhriyo labada calaamad kala duwan firto kala duwan yihiin mid hore maxaa loo akhriyaa waxaa la akhriyaa wax loo yaqaan alifaat sabca la akhriyaa mararka qaar waa ma mardifa waqti la akhriyaa khariya alifaat sabca badanna wax ardayna quseeya ma aha ilaa ay heer soo gaaraan laakiin waa wax loo baahan yahay macallinku baraarugsan yahay arday waxaan baraysa calaamad aamusnaana lama akhriyo ulaa'ika hadii alla ku leeyahay biaydin wajiya yowma waar doona insha allah tacaala marka calaamadaas waa calaamad aamusnaan shay meeshta lama akhriyo meeshta sar lama akhriyo kan waxaa la shadda la dhahaa shadku maxaa qabataa xaraf u adkeeya maya xaraf laba ka dhigaa laba xaraf weeyaan meel kastaale oo shadda saaran tahay waa laba xaraf oo ka hore reeban yahay ka dambana shaqlan yahay shaqalkee shaqal soo qaadan karaa xaraf kastaale oo shadda saaran yahay waa laba xaraf is saaran ismid laba xaraf is saaran weeyaan oo ismid ah taw waa taw waa rabbi samaartid marka laba xaraf is saaran weeyaan ka hore waxaa haysaa sukuun ka dambana shaqal buu haystaa bismil لا بسم الله بسم الله بسم الله الله ما الله ما شديه ويا مين خدت عمد بسم الله ترى اوكي مد كان محاصر يسا حرف الاريا الحق مثلا مخوا وين خبر رستاي نصاص وشقينا ان شاء الله تعالى ما حرف ما كي حرفه لبا كدغا مeel شد saaran tahay waa laba xaraf oo is saaran oo midna reeban yahay midna shaqal haysto shaqalkaasna wuxuu noqon karaa shaqal kastaaleha asmaa inuu noqdo ma hadaa hoos soo aadid mid kasta waxa lagu hoos qoray magaciisa fatxan ku qornay fatxan kasra ku qornay kan dama ku qornay fatxataynkii laba nooc noqdo samaatan kasatay laba nooc noqdo waa kasa ma u baahdee meel inta khabar kartaa si sahlan ma u dhigtaa nus sac akhriya ku dhaqa fariiso hadhow tiya ma inta ka qaayso waxna wax ka qaraysa inta soo diinaysa ana ka qarin okay waan si bobsin doona insha Allah taala fatxatay waa kasatay laba nooc damatayn afar nooc noqdo afar هذا أنا بتقانع ما بتقانع أفر نوع هو هذا متينك بدنا وحلا تعديد أفتح هل سوق جلان هل المصحف بيسوق جلان بدن كذا لكن لو دعسي هل مسوق جلان وبرسيا لو مصحف ضم لو ضمتين وضم يسا هل مسوق جلان قديم بتسوق جلان هو بحية مصحف الدنيا بدنا أبا كان ده إحنا كتير وكلاته وعادوا استعمال مصحف لو ضابعه أرض الشام لبنان iyo deeqa Korea Syria baad u badan kana waxa badan masaxiifta kaleeto Arabay Sacuudi u badan laakiin asalku muxuu yahay waa damatayn afartuba maxaa bedelaya marka maxaa haba noqon waayeen waxa bedelaya wax weeyaan caamilka galaya nahwi baa xaraf ka daba dhacaya xaraf ka daba dhici doona bedelaya waxaad ogtihiin oo hadda soo sheegnay maxaa looga dhigay mid kamid ah لما شغلك ميم بعض كحتمان اوكي كان سامع عقد هو اظهار هذا حرف اظهاري هي ساس سوق سوق دسيه هذا هي اخفاء يدي على كل ادغام نساون عاد وساق فديا ما معناها او في قانون احكام النون ساكنه والتنوين هروك فهميه قف كتاب ليه بس قدرنا انا بس ان شاء الله تعالى شغلات marka waa meesha aan ka jabnay qofa shaqalaha ma quran ku akhrinayna waa hameenka xalay tagay weeyaan waa riyoonaysa shaqalada hadda way ka baran doonaan adoo ku dhamayn doona quraanka haddaan ku daro halkan waxa yaala wax loo yaqaano hamzatul wasl alif kaas raacda alhamdulillah alhamdu shaqalka qaata fatha amma saarna alhamdu akhbirata alif kaas akhbirata alhamdu ihdina ihda alif akhbirata ihdina maxaa loo khray mar loo hoos dhigay waa macna kale oo baahan shaqal leh هذا صوك هو واحد هنا همت الوسط دي اللي مكحوه نقطة الله الذي الحمد ال دي اللي مكحوه سيو بلانتها ميلا يربع كذا سيو بلانتها وين
haddaan laam ku xiginin hamsul wasli waxaa la fiiriyaa xarafka saddexaad shaqalkiisa ihdina maxaa hoos dhignay daalkaa hoos dhigano haddii xarafka saddexaad uu hoos dhigan yahay ama kor dhigan yahay waa la hoos dhigaa oo fiirsaya xaraf saddexaad uu kor dhigan ama hoos dhigan waa la hoos dhigaa hadduu godana waa la godaa hadduu laakiin laam ku xigo waxaas ma waa la fiiriyaba haddii laam ku xigo al iska akhriya ilaa meelo yarar maahan insha allahu tacala ardoon wuxuu dhahay shadada cibaaratu can xarfayn laba xarfay u dhigantaa waxaa la dhahay madkana idaalad sawt waxaa cod ku dheereeya ardaygii shaqalada abarto marka maxaa shaqada loo baraya waxaan rabnaa inuu beri halkaa markuu yimaado casharka afraad u yimaado oo shaqalkan arko inuu yidhahdo ha wallahi waa aqaanaa wali allah ingiriis loogu qoro ardada ingiriis ku hadasho ahaystaan halkaas ku qoran yahay this is fatxa is pronounced as horka akhriyaya wuuna kicin doonaa laakiin intaad halkan soo gaarinin ha ku jabina halkan xooga saar kan ag fadhiiso shaqalba maalin bixi معلمه وما كل ما يقرا ارض ما يقول قاضي كاجد ولا حكى كعرس سريع يقعد سريع كعرس ترتيب تاع هو يقول ترى الله سلمان قران قدام يا واحد كتاب خرافه كله جوين والله وارض العقابي العذابي ويا سيد رد ظهرنا ارضنا مرنو لبا شيبه انت ما لو قادنين حرفها يا حركات شغل يا شبنه vowels and consonants انت ardada bartid waxaa kuu soo bixi doona isdaal ku ran yahay arday ka dhisan wax akhrinta oo wax kicin kara insha Allah taala